maqaayad hor taagan oo oday ah gaari ku dhex jira keligii ah sida isteerika gacmaha intuu u saartay iska fikiraya odaygii baan ag istaagnay waxaan idhahay see tahay xaaladda ka waran ma fiican tahay waan u qosqosolnay waan ag istaagnay markaasaa wuxuu yidhi naga taga masiibaa laydinku ridiyay inkaana laydinku dhacday uquba idinku dhacday habaar buu naga buuxiyey qosol baaba annaka nafta nooga baxaysaaba odaygu wuuba xanaaqsan yahay baciil bay nafta uga baxaysaa annagana waxayba naga tahayba qosol iyo ciyaar waxaan ku nidhi maxaa kugu dhacay waxaad u egtahay qof xanaaqsan xaaskaagii maa guriga kaa soo eriday carruurtaadii maa wax ku yeelay dhib maa kugu dhacay annaku wax dhib ah ma wadno waan madaxaan saas kuu dhadhahaynaa waan ku maaragtay waan weelinaynaa waan ku stresskan iyo xanaaqan iyo buuqan iyo waxaan kugu furan baan kaa baabi'inaynaa wax yaro lacagana waadna siinaysaa isdeji wuxuu yidhi wax ma idiin sheegaa allihiin alla hadduu yahay iga taga wallahi haddii kale waan idin dilayaa annagu marka odaygan markuu isxanaajiyo nacanaantu idhahdana iga taga waan ku qoslaynaaba qosol bayba nooga cadday kasbaan usii ag taaganahayba ugu dambayn wuxuu yidhi maxaad rabtaan inaad ii samaysaan oo aad lacag ku qaadataan waan ku maaweelinaynaa waan kuu sheekaynaynaa xanaaqa iyo madax xanuunkaan kaa dejinaynaa wax yaroo lacagana waadna siinaysaa bas wax kale oo qalad iyo xumaan iyo dhib kale dhan ma geysanayno bas ma intaasunbaa waa intaasuun wax kale ma rabtiin maya waad ii sheekaynaysaan waad imaaweelinaysaan lacag baan idin siinayaa haa okay shardi miya inaydaan wax kala rabin shardiba ayaan dhahan annagaa ma rabinba inaan xumaan iyo qalad kala samayno annagu waan ku maaweelinaynaa maaweeladaasaan lacagna kaagaga qaadanaynaa saas miya ahaa haye gaadhiga soo gala gaadhigii baan soo galnay gaadhigii markaan saas u galnayn in yar socni baan bilownay marka inaan u sheekayno wuxuu yidhi iga aamusa may maqlaysiin ani juuq ima dhihi kartaan aamusa soomeedaan o dhan waan kuu sheekaynaynaa waan ku maaweelinaynaa lacagna waan kaa qaadanaynaa guri baan idin geynayaa gurigaasaad iigu sheekaynaysaan lacagtiinaan idin siinaya waad iga soo tegaysaan ilama hadli kartaan aamusnaada haye annaka marba saasaan isu fiirinaynaa waan qoslaynaa markaan isfiirinaba yacni duqana ama ku xaraabaysanaynaba shactira ama ka dhiganaynaa odayga siduu noo sii waday buu wuxuuna geeyey guri xaafadaha wax yar ka yar go-an oo meel gees ah ku yaala oo guri weyn oo filla ah gurigii baan gudaha u galnay albaabkii baan weynaaye ganjeelkaan ka galnay gaadhigiibuu meel ku baakimay wuxuu yidhi soo dega shardi buu yidhi horta suga gaadhiga saarnaada ha soo degina shardi baan idinla gelayaay marka dadka maaweelisaan ee lacag la idin siiya meeqaa la idin siiyaa marka qaar waxaana la siiyaa 200 marka qaar waxaana la siiyaa 150 iyo 150 mararka qaar waxaana la siiyaa 200 iyo 200 wuxuu anu waxaan idin siinayaa $1 iyo $1 2,000 markaasaan faraxnay 1,000 iyo 1,000 baan idin siinayaa laakiin waxaa shardiya wax allaale waxaan idin dhaha sameeya inaad samaynaysaan markaasaan ku dhahnay oo de hadal iyo maaweeli iyo sheeko ka baxsan anagu ma samaynayno 1,000 iyo midtoona hana siinin maya wuxuu yidhi may sheekadiina wax ka baxsan anaa ma rabinba 1,000 iyo 1,000 baan idin siinay amarkayga soo ma qaadanaysaan haa soo dega waan soo degnay haddaan soo degnay waxaan galnay meel qol ah oo gurigan weyn ee fillada ah qaybta hoose ku yaala meel hoos ah qolku waa qol weyn oo waasaca albaabkiisuna albaab weyn oo dhala ah waa dhala culus baa albaabka ku xiran qolka markaan saa u soo galnay waxaa ku xiran waxyaalo qalab nooc kale iyo waxa aan fahmayno qol si awaayaba isaga dhan albaabkii markaan saas uga soo galnay qolkii soo dhex istaagnay aayar albaabkii wuu xirmayba odaygii wuu xiray albaabkii furihiina wuu ku rogay markaasaan dhahnay haye khayr maxaad albaabka u xiraysaa baan idhi anigii sihaamti way qoslaysaaba yacni waxay ku qoslaysaa waxay isleedahay odaygani waxaa laga yaabaa intuu albaabka xidho inuu is yiraahdo gabdhahan ama aad xoogtid ama aad ku xadgudubtid waaba dilaysaanba gabigiisaba odaygan inaan dilayn odayaashanba aan la sheekaysanay lacagta ka qaadano odayaal waaweyn way waxaan iska dhaadhicinay marka odayaashan hadday lacaal la idinla yimaadaan waxaad ku heshiiseen wax ka baxsan garaacaba dee oo dil oo afgembi u tuura sihaamti way iska qosqoslaysaa aniga waxaan maxaad albaabka u xidhay maya wuxuu yidhi kor waxaa degan xaaskaygii iyo carruurtaydii iyo dad baa jooga kor ma rabo marka dadkaa kor jooga inay sheekadeena iyo qosolkeena maqlaan waxaan rabaa miisig baan daaranayaa halkan aad ku ciyaaraysaan waad imaaweelinaysaan marka ma rabo in layna maqlo saas miyaa haye 2 kursi baa halkaas iyo halkaas oo kala yaala 2 kursi kuraas bir ah waaye oo nooc kala ah weli noocooda maba aanan arkinba wuxuu yidhi haye fadhiista midayna kursigan ku fadhiiso midayna kursigan ku fadhiiso anna kursi baan ku fadhiistay sihaamna kursi bay ku fadhiisatay meel miis oo kuraasta u dhow unba odaygii saa u istaagay anna waan fadhiistay sihaamna way fadhiisatay soomaa odaygiina wuu taagan yahay miis yar baa marka kuraasta u dhow halkan oo kale miiskii unba odaygii istaagay saa unba wax u taabtay labadii kursi dhab 4 adin waaba naga xidhmayba biro
kursigu wax bir hoosaan oo kala ah asaas ugu soo rogmanaysa qofka gacantiisa lugtiisa gacantiina waxba ku xidhmay gacantii kalena wax labadii lugoodna sidoo kale kursiga baa ku xidhxidhanay